حياتي لوحة وأنا أعاني من حيرة الفرشاة والألوان. markaad caawa seexana sawaanaad tidhahdaa war 24 saacadood oo sanado yarayaan haystay waa tegay 24 maxaan qabtay inaad isweydiisaa maanta maxaan qabtay ليس في معاني من ذا يداوي حيرتي ويدلني كيما أرى بين الخطوط مكاني. baahannahay tarbiyad tiro badan oo asalku ah mujaahada والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلهي وحلي كوا حقيقة أدداله وجهاتما أن الطريق وقهن يا بيله إليه سبحانه وتعالى. إذا نفت بن آدم كي واي كرطه waxa koriyaba leenay aqeedada fiican waxa koriyaba leenay acmaasha saalixa waxa si fiican u koriyaba leenay inaad la dhaqanto maxay mujtamac iyo bii'o fiican dad wanaagsan inaad la noolaato way asxaabta xuna sharka haddaad la dhaqanto qof cay badan haddaad raacdo waa dhib mid shar badan haddaad raacdo waa dhib mid salaada ka taga haddaad raacdo waa dhib waa inay noqotaa bii'ada iyo environmentka kugu xeeranay bii'o khayr leh bii'o fiican bii'ada fiican waxaa laga faa'iidaa maalintaad adigu daalan tahay walaashaada kale ayaa nashiita qofka bini aadamkii mar kastaba ma firfircoona marmar badanoo naftu ay caajista ama daasha baa jirta laakiin walaasha ayaa firfircoonay markay kula joogto iyadaa gacanta ku qabanayso hore kuu qaadaysa maalinta iyadu daashanaadaa gacanta qabanaya dadku khayrku isku gargaarsada idan qofku inuu majaalis alkhayr u yimaado meelaha khayrka lagu hayo uu xaadiro dhulka wanaagga lagu hayo uu tago waxay noqonaysaa naftiisu inay korayso kobcayso waa zaad waa sahay naftu ay u baahantay keligaa haddaad socoto waa daali laakiin haddaad haysato sahay ama gaadhi ku qaada ama waxaad sii cunto ama dayurad ama waxaad fuusho socodku kuu fududaanaya waxyaabaha socodkaa fudaydiya socod baad ku jirtaa in janno lagu socdo الصراط المستقيم oo janno taga waxa kuu fudaydinaya waxa weeyaan inaad dadka khayrka la raacdid majaalista khayrka lagu hayo inaad xaadirtid meelaha wanaagga laga sheegayo inaad joogtid waxa kuu fudaydinaya inaad adiguna isku daydo naftaada maalinle inaad ula dhaqantid haddaad dukaan haysato oo aad seexanayso fiidkii waxaa laga yaabaa qof waliba xisaabtiisu xidha maanta wixii laga iibsaday lacagtoo dhan buu tiriyaa dhan buu dhigaa weliba lacagtuu kala saarsaaraa wixii boqol iyo konton iyo shan inba meel buu ku qoraa wuxuu qoraa wixii dayn maanta uu bixiyey iyo dadkii uu lacagta ku yeeshay oo dhan wixii uu lacag soo galay oo dhan si fiican buu u xisaabtamaa habeenkii wuxuu seexdaa markuu xisaabta xidho isagoo garanaya wuxuu faa'iiday wuxuu khasaaray waxa dayn uga maqan waxaasi oo dhan waxa aad xisaabinayso dhan waa raasamaalkii dunawiga ahaa bal ka waran raasamaalkaagii dhammaayay cimriga ahaana nolosha gebigeedaba waxaad ku leedahay waa sanadahan yar aad jirto ee 60 50 40 70 waa intaa raasamaalkaad haysataa hantida aad rogrogaysaa waa 70 sannadood ama waa 60 sannadood ama waa 50 sannadood kontonkii sano waa inay ku xisaabsanaadaan markaad caawa seexanaysa waa inaad tidhahdaa war 24 saacadood oo sanado yarayaan haystay baa tegay 24 maxaan qabtay waa inaad isweydiisaa maanta maxaan qabtay 5 salaadood waan tukaday intii kale xagee ku baxday maxaa ii kordhay aakhiradaydii maxaan dhisay maxaan dambi iga dhacay haddaad si fiican u xisaabtanto habeen walba markaad seexanayso waxaad garan lahayd aroorta dambe waxaad ku kaakacayso iyo meeshaad u kacayso waayo cimrigu waa wax yar naf iyo shaytaan ma ku odhanaya waa waqti badan baa ku hadhay iska noolow waa maalmo qofka imika 5 jirka maraya ka 6 jirka maraya labaduba nolosha way la yarta way gebigeeda maalmo ah maalmahaasi waxay u baahan inaad si wanaagsan ugu xisaabtantid wixii ka tagay waxa ku hadhay inaad is weydiiso warta caawa hadday baxdaba soo noqon weydo maxaa kala ah ilaan ilaahay baa quraanka wuxuu ku leeyahay nafta markay jiifsato waa qabanaaba ilaahay dabeetana waxa la yidhi tii waqtigee wax u hadhayna waa la soo daayaa
tii kalena waa la hayaa. inay adiga talahaynaya tahay iyo inay tala soo daynaya tahay ma kala hogtid. ha iskaga talagelin inaad aroorta soo kici doonto. in badan baa intay seexataan aroortii dib u soo toosin. wax waliba way dhici karaan. sidaadaad isaga baktiyi kartaa, sidaadaa gurigu kuugu dumi karaa, sidaadaa xabad seeraaro meelaha ka soo dhacda kugu dhici kartaa, sidaadaa danab dusha kaga dhici karaa gurigiinna, sidaaday wax waliba waa dumi karaan, sidaadaad isaga dhiman kartaa. idan waxaa inaad ku xisaabtantaa warta caawa hadday dhammaato taadii maxaa kaa horeeya. qofku hadduu muraaqaba samaynayo oo wax kasta uu samaynayo uu ilaahay ka dhex arkayo subxaana wa tacaala, hadduu xisaabtamayo oo noloshiisao dhan xisaabinayo, hadduu dadaalayo oo uu leeyahay arday markaa ti aad wax dhiganayso sanad walba waxaad is leedahay shahaada soo qaata. shahaada yaraad sheegaysaa waa maxay? waxaad ku xisaabtamaysaa waxay 4 sanaa soo dhameey, 5 sanaa soo dhameey, 12 sanaa soo dhameey, 4 jaamacadaan soo dhameey. waxaad xisaabinaysaa wixii aad dhamaysay. qofka muslimka waa inuu ku xisaabtamo war naftan intaad korisay. sanadkii hore 5 salaadood unbay tukan jirtay, imika halkay maraysaa? ma ku dartay sunankii oo dhan? sanadkii hore sunanka rawaatibta iyabay ka adkayd iyo salaadaha imika tahajudkii ma raacisay sanadka dambe? waa inaad xisaabtantaa. waa inaad isweydiisaa war ramadaantan soo socota maxaan kordhin doonaa talow? maxaan ku kordhiyaa nafta? waa in shahaadada kuu kordhaa. aad aakhira ilaahay la hortagtid oo tidhaha ilahu inta baan adiga dartaa u soo sameeyey. shahaadadii iskuulka waa inaan laga fekerin, iyo kalaaskan ka soo gudubtay kalaaska kale aad gelaysaa keebuye. waa inaad ka fekertaa aakhirana sanadaasi tagtay sanada dambe waxaad biirinayso. idan waxaan leenahay tarbiyatu nafs. 2 shay haddaa ka adkaataan naftiinu way kobcaysaa. kow, aqoon ahaan inaad korodhid oo isku daydid waxa ilaahay kaa doonayo dhan inaad fahamtid oo garatid. 2, dhaqan ahaan inaad korodhid oo isku daydid shalaydaada iyo maantaadu inaan isku mid kuu noqonin. shalay halkii aad joogtay inaad ku tala gasho maanta inaad ka ruqaansato, hore uga sikatid, hore uga dheeraysid oo aanad halkii shalay joogin. hadduu qofka muslimkii sidaa uu fakerayo oo horumarka uu ku fakerayo uu guulaysanayo.